inaan gobolka Maroodijeex maanta oo aynu halkan hudheelka guuleed hotelka ugu qabanay xafladan qiimaha badan aan ku soo dhaweynayo taageerayaasha ka soo baxay xisbiga wadani ee maamulka Maxamed Mooge Maxamuud Haybe Gacalibaax iyo golaha dhexe ka soo jeeda may ahayn xisbiga ucid maadaama ay abaarajiraan inuu xaflada noocana qabto may noogu oolin taybalka iyo jadwalkayga shaqada sida uu nafaray hogaamiyaha qaaliga xisbiga hogaamiya waxa ay ahayd inaan u gurmano dadka iyaga tabaalaysan ee abaaruhu hayaan aanu gaajada iyo haraadka iyo oonka iyo dhibta ay qabaan aan la qaybsano la dareenaabay ahayd balse xafladani waxay ku timi oo ay ka dhalatay markii xisbiga ucid annagu hawlaha ku hawlan dacaayado fara badan oo aad u badan naloo mariyay miidiyaha oo la leeyahay hadba ucid baa laga yimi iyo ucid baa laga soo baxay iyo ucid baan ka dhigay waxaanu beenaynaynaa oo aan ummadda reer Soomaaliland sheegaynaa inaanay dadka meelaha yaacaya ahayn xisbigayagii waa dhan yahay waa nala joogaa gobollada dalka oo dhan buu ka dhisan yahay dalka Soomaaliland oo dhan buu xafiiska ka furan yahay gobolka Maroodijeex baaragtaan awoodiisa haddii ilaahay idmo oo maanta dhibicda roobka ugu horeeya allah ila raxmaadka ilo shubay uu daa roobku waxaanu qaban xafladaha ku labanlaabno oo shacbiga reer Soomaaliland ay ku ogaadaan kuma dareemaan xisbiga ucid taageeradiisa awoodiisa fileetay shirkii uu ka qayb galay ee khaatimaya Soomaaliland ee uu hoggaanka u ahaa injineer Faysal Cali Xuseen uu hoggaanka u ahaa waxa ku cadaynaysa inuu shacbigan cid walba uga daqasho badan yahay oo cid walba uu wax kalgacal badan yahay caawimada qiimaha badan ee uu ku wareejiyay dawladda Soomaaliland ee caalamka uga soo dhameeyay ee uu adduunka u soo weydiiyay dadkiisa tabaalaysan inay caawiyaan oo abaaraha wax ka taraan halka ay xisbiyada kalena kaambeynka isharwadeen iyo wasiirada Faysal waa nin ku sugan isaga xisbigiisuba qabyaalad la'aan iyo qoomiyadnimo qabiilna waanu nacnay haddaanu nahay reer ucid qabiilka noogu soo hagaagina ucid maaha qabiil waa qoomiyadda reer Soomaaliland waa xisbiga ummadda isku haya waa xisbiga ilaa haddii aan dib ugu noqdo imika taariikhdiisa ka geeyoon maayo injineer Faysal Cali Xuseen xisbigan waxaan ku doorannay cadaalad iyo daryeel ayaan ku doorannay annagu waxaan ka soo digadagonnay xisbiga wadani ayaan ka soo digadagonnay waxaan ku soo biirnay oo xisbigan aan u nimid sababta oo ah hannaanka iyo hoggaanka mas-uulka qaaliga ah ee had iyo jeeraale u jilicsan ee u turaaya dadkiisa jilicsan iyo abaaraha dhacaya
waxaan markaasi mas'uulka ama hoggaanka Faysal Cali Xuseen aan ku soo dhawaynaynaa sida qiimaha iyo qaayaha badan oo shicibkiisa iyo dadkiisa jilicsan ugu eegaya ayaan ku dooranay annagoo ka soo bigarogonay xisbiga wadani ومانا لمن حسبنا القبيل يا قبيالة ومانا لمن وحن أنمت مركا ميقنا سده الحزبية ترتمى إياه حزبية با أمده قامية إياه حزبية با أقلمة أدتك حنان تريا وفيصل بمبري فيصل وحن أجله هجانك فيصل علي حسين وياهي شخص مهلا ويعني هنتي زي هنانتي زي وكسر رأيه إنه كرسي كفر يستوكريا اسمك عدالة يا دريال كإلا يرادو حنجيب الله مريا عالم مطيسا لكن تتاسي وإذا ونقينا من عالم قصي من عالم ما قطان وحينا ينقل هاي ذيك الصلاة ينقل كاكاو مرنا وين ما قمريا لكن شيء فحال قدر من حسب عدالة يا دريالك استقلتون كنظرون إن شاء الله تعالى دولة إلهي مطلوبة ما كانوا عليك ولكن يا عبدك وكذا يحيي ذلك يده وكذا يحيي قرنك في شنكيس رعان وهين إنه وكرسي وكفر يستطيع أيوه هاي إنه ومتى هرمون ونغضو وهسيرو عدالة إلى دريالك إستيقا نجد وكتب تلاقي سياسويتا هاي أنا تينا وحفظها تتريا وحسوسا لغنيا الله يريد جناب فيصل علي حسين مالك وجلاء حياة دول كوانجلت يوتن بيسي كسر لغو قائل لغو كلاهي سنغان قبل كسور مسرح سياسة وحكو صديري لما الوغانية أوليني فيصل وحليلي ألوغو وحتى هيين ليلنتي هييكنا ومركو قاتلي مركو وحدالتاتي وحتى ما فقرنتاتي وحتى ما فقرن كفوفك اليوم الله هنكي سنة الله هنكسي قليل عن كسو دورا ما قليل تحسيك أكتول وحكتوها لكن سوف يسواني كتب إنه فوق تفصلتها إلا قلت المعنى كاسنا وحي عطينتها إنه حسنك ياهي حسنك هتحيا كل حاجة وإلى أسباب وليسك الجمهورية الصومالية انت لما كتبه وحانو كصادق ربني اسبقي معارضك هاي وداني مركانو أرقني أنا قلت لي دقمة محمود هايبي مركانو أرقني عدالة هذا كتبك اسبقي وداني إيا عوشي آنو لهاين oo Ahmed cunaha lagu duubtay oo aan laba soo gaarsiinayn marka waxaanu ka tashanay inaanu waraabtaan u ahaano xisbiga wadani ayaanu ka tashanay waxaanu ku raacnay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee u yid annagoo aan oranayn annagu sidii Jamaal Cali Xuseen oran mayno tolka yaa nala taliyay oo waxaanu u tagaynaa maxaan ku idhaahdaa waxaan u tagayaa Muuse Biixi annagoo oranayn sidii Jamaal Cali Xuseen anigoo dumar ah oo aan tolkayga tashan ayaa waxaan la tashaday naftaydii ayaan go'aan kula gaadhay inaan maxaanu ku raacnay markaa isweydiin leh waxaanu ku raacnay xisbiga cadaaladda iyo daryeelka waxaanu ogaanay guddoomiyaha xisbiga wuxuu mudane Faysal Cali Xuseen inuu yahay guddoomiyaha keliya ee ay ka go'an tahay go'aansitaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay muqadas ka tahay uu yahayna ka keliya ee raadinaya ixtiraamka Soomaaliland ee go'aan ku gaaray inuu dalkiisa iyo dadkiisa uu xornimo buuxda u keeno Soomaaliland u keeno sidaa daraadeed waxaan tirinayaa maanse yaroo gaaban
haystaalinahu bsiimayeelo waxaanad helayna haynin codkaaguna yuu hallaabin hadhow yaanad qoomamoon intii nooga hidhay wadani dabaylu cid baa hesho halkuu ku dambeeyey mooyi hay weydiina hayaanka soo raac bilaacbaa noo baxo hirdooglaa lagu socdaa daruuraha hore iyo hirdooglaa lagu socdaa geediga loo habaynayaa bulshadu ku hayaamaysaa ucidoo horumarno Soomaaliland u heelantiyo halyey Faysal Calibaan codkayaga u higaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahadnaqayaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa taageerayaasha faraha badan ee maanta ku soo biiray xisbiga iyo madaxdii xafladan qabaqaabisay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa weliba waxaan usii mahadnaqayaa gudoomiyaha xisbiga ee gobolkan Maroodijeex saaxiibkii Cabdi Dool waxaan leeyahay gudoomiye aad iyo aad ugu mahadsan tahay xafladda saaka markaa soo galay kolay aniga iyo madax kaloo xisbiga aan nahayo xogaynihii gobolka Togdheerna wila shaqeeyo mas'uuliyiin kaloo xisbigo xafladdan markaan aragnay aad iyo aad baan ugu faraxnay xafladdan waxaan saaka u bixiyey magac baan u bixiyey magaca aan u bixiyey waxaan u bixiyey magaca la yidhaahdo hillaac marka hore waxaan u hambaleynayaa xisbi weynaha ucid oo ugu horreeya guddoomiyuhu iyo madaxda xisbiga ee hareera fadhida iyo taageerayaasha faraha badan ee xisbiga ee madashan aadka u bilan ee u quruxda badan soo camiray waxaan leeyahay taageerada mugaya miisaanka leh ee shacbigu u hayo guddoomiyaha xisbiga iyo xisbigiisa waxaan leenahay hambalyo waxay leedahay waxay maanta wax badan bay beenaynaysaa oo la qabay bay beenaynaysaa waa soo dhawaynaynaa waa ku diirsanaynaa dad badna wuu ka naxayaa badna wuu ku diirsanayaa maanta waxaan leeyahay waxaa daanahay madaxdhaqameed Maroodijeex xilli adag baynu ku jiraa xilli abaareed baynu ku jiraa xilli gurmad in dadka loo gudbado la badbaadiyo waxaan taageerayaa oo ku taageerayaa maalintii dhaweydna 3 xisbi isku yimaadeen iyo komishinkuba labadii xisbi ee iska raacay inay maanta doorasho dhici karin ee dadka loo gurmado waa ku taageerayaa taageeran ku jiray runtii waan soo dhawaynaynaa madaxdaas soo digalobatay ee cudurdoodii iyo awooddoodii ku soo kordhiyey markaa waxaa xisbiga daryeelka iyo cadaaladda ucid aad baan u soo dhawaynaynaa waxaan leenahay soo dhawaada xisbiga ucid runtii sifaad buu leeyahay ilaahay ku garab galay waxaynu ognahay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa ku qoran kelmadda tawxiidka oo ah laa ilaaha illa allah muxammadan rasuulullah waxaynu odhan karnaa kelmaddaas odayaasheenii ku qoray ee niyadda wanaagsan ugu qoray wataa ilaahay nabaddeena uu ku sugay wataa cid allaale cidina taageertay iyadoo jirin ay markaa waxay dalkeennu uu dhisan yahay waxaynu odhan karnaa kelmaddaasaa qayb ka ah xisbiguna halkaa uu ka shabahayo calankiisa waxaa ku qoran laa ilaaha illa allah muxammadan rasuulullah allahu akbar ilaahay guushayna siiyo cid ha guulaysato hoggaanka dalka ha qabato waxaan halkan ku soo dhawaynayaa mas-uuliyiinta iyo taageerayaashii ugu baaxadda weynaa ee ka soo digarogtay xisbiga wadani waxaan leeyahay hambalyo soo dhawaada qalbi furan ku soo dhawaada gacmo furan ku soo dhawaada walaalnimo ku soo dhawaada xisbigu waa xisbigii cadaaladda iyo daryeelka waa xisbigii ay ka mamnuuc ahayd qabyaaladii
dadka nin jeclaysi iyo reer jeclaysi midna lahayn إلهنا كبرنا سبحانه وتعالى إنه كل الله عملنا معه وقصة أفجرنا ولكن عم قصة أفجرنا خلاف في عند حيالين يقولوا كاس وأنا أضوح عنه ذلك الكويت وآل نوع عاوية وحرد أغاطي نوع سنين وإسرائيل تجيبنا تونسية وإسرائيل جرونا وإسرائيل جرونا كواحد جالسين الزميلين أيام معاولة تلقى ثمانية أوقات النار آلي أبو فوش حمين وهب ستي معاولة وضوء لو الخصوصيات كلام كان واحد بالعامين أنت عم مقنع أنت أمتكم مقنع إني كم وقف تجارة إلى هذا حق هذا كسر محفوظ أو كسر محاو الشغل الجريء أو عدوي بعض عليك كاري وهذا يوم قال كل محاولكم ولا قال الأندلسية لما تكون الدولة سياستنا معها حسب ما كسر محاو قبل يسوق عليه سياسة الحوي ذلك محاو هيسا ومتى محاو هيسا ذلك ملاهي سمحات قوة من الإسلام هيا وياه والأدوك لقوم عرق سومان أدمين موجاني وفي لا خصوصا كالبحي انتم برس كونفرنس بحية عندنا حد الله وصل هي أدوك لقوم عرق وحلوك لسارع مرحلة ترتمسا محاي ولا محاي وتاقيه سياسة دولة تعليم هو محي بيئة هو محي عاطمات هو محي انفراستراكشر هو محي سياسة الدولة هو محي تأثير هو كلا محا جيد هنا يصور كلية بنت هنا يربع صور بتوع عيتمسا لو ما كانوا ولا سياسة دولة نجح في هذه نجح في ولا هي من الواطاس هذا ما هو أي شيء ليس لا أنا مبيسرها وما نعمل هالكنينا غير كيا دولة دولة كقوم غير كيا سمايو إن أنا على عكس سمايو ما يما وحروي لي إن الدت أممات كنقونا سوماليا سوماليا ما كيسون درسنتين إنك أكل تعليم بدين إنك أكل سكول بدين إنك أكل تاجرين بدين ما أنت إنك سوماليا جي سقف إنك أوليدنا كذا كشرابين النعمة ويقول لك على ميل سومالي وين لوجي إن عندنا كسر عينه موقف كيسي ومرضى كذا كان يقول هاي وين وين جريت كنتري كان يقول أو تقال له أو تدخل عطف عمنا يقول فتام ما تصومالي نجامو فون لأنه قاضي كاشي يدي شيء أنت فما يدي شيء تقال فما يدي شيء بيلان بايدي شيء حافظها بايدي شيء تعليل بايدي شيء انت هنا نكون قادنا وإمامه سبحانه وتعالى إلهي وحمره سبحانه وتعالى إذا هذا خير لنا هاي يقول لي يبدأ لي كذا يا وجهنا إن شاء الله تعالى ولا يا قبيلتنا أنا وايد تنانا هذا قبيلة وفن عسل شهري ما كلا يقول أنا هالك كسر جيدنا ولا يقانا هو إلى هالك كسر جيدنا ولا يقانا من يلا بسني بتشرب ولا كم قال له هالك يسوع لنا